ما أنا هرجل ما قبض هبين جيف ما قبض نفكر أدوك وهست 5 sano ayay xanuunsan tahay uurka ayaana booga silac iyo saxariir adduun ayaana ka muuqato hooyadan Soomaaliyeed uurka booga Allah afka ya booga dhibkan haysta 5 sano adduunyada u haysta way kala lehna way ugu dhamaatay ma raba Soomaaliya adduunyada laga caawiyo deeqa bahdoon taakoy oo ku dhibaataysan xirada ifo xanuunka waxa u dheer gaajo macaluul iyo daryeel xumo kale tabarlaanta faqadarada ay haysan duweyna waxa ona Allah wala simooy Soomaaliya aan qasana duweyna inay caawiya isbal geeya in ka qasana hadalka ayaa ku xirmay waxayna dalbatay biyo madow balse nasiib daro biyihii baahay ayay la cabi weyday intaan la joogay hadday caawa ama maanta gaajo u dhimato lama beensado hooyadan dhibaataysan mana jirto cid daryeel siisa biyaha gaajo way baahan tahay biyihii marka waa cabila oo beerkii wax ka qaadi lahaa biyahan gaajo ya cabila hooyadeedoo kaligeed kor joogta muddo 5 sano ayaa ka sheekaysay dhibka gabadheeda iyo sida ay ugu tabar iyo taagla'dahay gabadhan waa gabar xanuunsan 5 sano aan ku korrafaadsan waxaan gacanta ugu hayay waxaan yar male muslimka meel joogaba inay gabadhan ay arkaan dhibaatada ay wax kor haysato guri ma haysato gaajo waa kan waxaan siiya ma hayo marka adduunyada muslimka inay soo caawiyaan oo ma walba la soo caawiyo sahar xamba yarow waa lay dhahaa marka ana dhalay marka ma walba muslimka inuu soo caawiyo guri ma haysto waxaan siiya ma hayo gaajo u dhimanaysa waxaan isbitaal ku geeya ma hayo marka gobol ma haysto muslimiinta meel ay joogtaba inay soo caawisaan rabaa ummadda Soomaaliyeed ee naxariista iyo bini'aadanimada u saaxiibka ayay ka codsadeen waxaan siyaaba uma hayi marka macaluul silac gaajo qarash la'aan silac marka macaluul saxariir ay haysataa marka 5 sano ku korrafaadsanahay ayadii waxaan siiya ma hayo waxaan cunsiyo ma hayo marka waxaan u haya male marka muslimiinta meel ay joogtaba Soomaalida muslimka inay soo caawiyaan oo dhibaatada haysato oo waxaan siiyo iyo waxaan meel u dhigata macal gogol inaan hayin oo meelan galiyo inaan hayin meel walba muslimiinta meel ay joogtaba inay soo caawiyaan baan rabaa culimada Soomaaliyeed ee aragtay nolosha hooyadan ayaa ka dayrisay waxayna baaq u direen muslimiinta aniga iyo adiga aan ka mid ka nahay gabadhan way xanuunsan tahay meelahan waxba laga qaban way xagar dheer hadda ifay joogta isbitaalka ifo waa la geeyay waxba loo qaban way xagar dheer waxba loo qaban way waxa uu si dheer guri la'aan gogol la'aan cunto la'aan jiif xumo jal la'aan baa gabadhan haysa intaas ay isugu darsatay hadda intaan la joogna waxyaalaha aragnay waxaa ka mid ahaa biyaha la siiyay tiri biyo afka markay saartay cabi kar weyday waa la weydiiyay waxay tiri beerkan ka cabi lahay waa gabar Soomaaliyeed oo walaashiin ah oo gabdhihiinoo kala oo xanuun Ilaahay u keenay subhanahu wa ta'ala Allah ka qaade gabadhan aad u rafaadsantay wartaan baashaas ku tufaysa dhareerka maama haysa maamadu ma tabar dhaanto u jeedinayada 5 sano ay qaadaysa mana qaadi kartaa wada ku qaada ma haysato meel ay dhigta ma haysato say tiraada ma haysato waxaan ka codsanaynaa muslimiinta Soomaaliyeed gabdhaha caloosha jilicsan ragga wanaagsan ganacsatada culamaa diinka dadka Soomaaliyeed inay gabadha u soo gurmadaan haddaba dhammaan ummadda muxsiniinta ayaa laga codsaday inay ka soo jawaabaan baahida bukaankan Soomaaliyeed Maxamed Bawrud Xuseen warbaahinta Dadaab